dadka qaar si kala laga yaabay inuu fahmaan wuxuu leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaalaa waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo madhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirta ee way saalay soo farjin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa kugu daliil meel kale kama keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam muaad ibn jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay muaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadiina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaay kitaabki laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo see la yeelaa marka oo hadaan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo igmanaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri muaad ibn jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan ma farna fil kitaab min shay mufassiriinta qaar waxay ku fasireen suuna isaga hor imaanin diintu isaga hor imaanin waxay dhan waa looxul mahfuudka waxa la sheegayo ma farna fil kitaab min shay inta la sheegayaba waa looxul mahfuudka wax kasta ku yaalaan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oo ku olin ayaa jirta midaa wuxuu u fahmay ogtahay in wax walba laga helayo la isku mar dhigo ogtahay wax aan yaani aadan helaynin mid ingiriisi waxa la mid oo saas oo aaminsan ma farna fil kitaab min shay waxba loogama tagin dhaay yay sarkeen xunana kitaabkeen wax kasta uu sheegaa markaas uu kitaabkiina wax kasta ma sheegaa ha magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu yiri cook ayaa la dhahaa watarakuuka la bishoogaysaa watarakuuka cook ma sheegaysaa magaci ninka ingiriisiga oo meesha ka soo saaray watarakuuka ah marka meesha waxa la rabaa yaani in la fahmo ma farna fil kitaab shay waxa loo jeedaa waa looxul mahfuudka wax ka soo sheega laakiin kitaabkeena quraanka fa in lam tajid ayaa ku jirta taas waa mid kale waxay tahay kitaabadan inoo qoran fiqiga ah safiinaha ka soo bilow sheekh ayaa qoray faslun hada kan faslun fasal waaye oo inoo qoray nawaaqidul wudu'i faraa'idul wudu'i mubtilatu salati wuu qoray minhaajka sheekha qoray wuu sharxay waa wax la qoray ogaada laakiin waxa laga soo istinbaaday oo laga soo bixiyay kitaabku wuxuu inoo ogol yahay marka wixii aan xalaal iyo xaraan ahayn wada mesela khamradu waa xaraan ribadu waa xaraan zinadu waa xaraan hadii dastuur la sameeyay intii la dhahoyado adduunka maanta gaalaha haysatee bangiyada ribay ku shaqeeyaan aan ribada xalaalayno inagoo Soomaaliland dhahna dhaqaalaha si uu kobco gaalada bangiyadeeda ribada isticmaala ayaan la shaqeysanaynaa saas daraadeed ribadu way bannaan tahay qaar dhahan oo saa ku soo qoraan lagama yeelay maxaa yeelay taxliilka iyo tahriimka ilaahay baa iska leh wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib laakiin ka waram hadaan dejisana qaanuunka la yiraahdo qaanuun tawdiif al-amal shaqada dadka sida loo siiyo waxay mesela wasaaradda meeshaan ay taala shaqaale inay qaadatay rabtaa hadii aan qaanuun loo sameeyay shaqaalaha lagu qaato waxa iimaanaysa qofkii maamulo looga dhigo wasaaraddaas inta ilma adeerka ay yihiin la inuu ku qoro shaqaala tahay adna shaqaala kulli wada shaqaala ka dhigo war sidaan maxay tahay maxay ahaan lahayd wasiirka maxaa 4.5 soo lagu ma qaybsan wasaaradda annaga iska leh war sidaas ma aha wasaarad ummaday ka dhaxaysa canshuur dadka laga qaaday ayay wasaaraduhu ku socdaan saas daraadeed dadka shaqada laga siinaayo qaanuun la isku og yahay waa in loo sameeyo qaanuunkaas dadka shaqo siintooda ah waan sameeynaynaa
وحاجر قانون ليراد مثلا قانون المرور ودوين كسيل لو مرا هذا مثلا جد كان هرتين مرا أفجوي هذا بابورتو مركا أي مرايان لبا دناعي كلا مران كي أفجوي وصعد دنك ميدكتو مرا كأفجوي كي معضينا دنك بدحذو مرا وإسقرب صعدان مركا هدي مثلا كو أفجوي وصعد انتو كبحو دناع ميدكتاه أو دناع كلا أو مرو تذكرون محيدها هذا واسكال قبصنا والاسكامرا موجي لكن محل له بابور كاس شرع الدراي وضد كمرايا أو سيد كيسي أما دنعيسي معه هدي ترافق أي قبطه محيدها مخالف وكجرا وحو خلافي قانون كي أو وضد اللي قمر لها جناح على قاضايا هذا ترى هذا قف كان بقول كن أشون الصومالي على قاضي محل لو قاضي آيات دل لو قاضي هذا ترى آيات جناح شيء جيسة وكل هاي بقول كن على قاضي قف كي جد كأفجوي يسقو دنعي كلا كمرايا ده مهليسد حديثنا مهليسد لكن هذا صار لون نظامين شلال كبابورتا يسكون عيا بدنايا ساس درادت وحي معناها دتكو أي وحده كل نظام صنايان نبي وحور أنتم أعلم بأمور دنياكم الدنيا النساء دقنا يصير إنك تقانان لكن محل الله أقولين وحشر على خلاف سن هذا إنك سومالي هدانا بربك يكذب وح دولة اللي سكسوا يرى أديو وحلقة صوب بالله لبدي يكون شركة عرتا شركة عرتا وحاقة بن غابي ودكتين سومالي أيام التاريخ هذا محل يكون في عينين موجي وحاقة من قابي دد بالشر هيدا أو علماء هجامين هيان أو هجامي كوحدي حل جاز جري قريب كما يناهين وحال سكوا دي أضياش لقنكا جناع ستدي علماء دي وشركة عطوة تنسوق داعي مركي لقراء الدستور كوحالو قراء أو إلى هذا بكتة الله أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر باطلا قضب كستا أو شريعة الإسلام ككهر إيمانايا وحكم الجيران يا مركب صومالي شريعة وحنا يا كل حكم كره كأوقف فاسق سندي لك كانوا بولشة أيوج يهاي إن الشريعة أوقشها هذه سؤال ويدي هذا وطن كم حد كل حكم يسا هذا هو فاسق هذا لوج يهاي أموريانا محودها يا شريعة ولا ما تابتان شريعة لوج حكمها ما شاسفير ولا سوق جارسي ومسؤول سوق جارسي إلا فلوية لا دمن دتك فكر أهان دتك كلهم وحلاقة داعي شريعة الإسلام كمسلمان نهاي وحكله أو أنفعها مجرى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وعلى يسود جي الراعة وعلى يسود جي وحي سلاس لو شيء حلال يا حرام يا كسب سما سلاس وحي النظامين يا كسب سن حاجة لما رأي بيرها سير لو قطايو جوجا سير ديارها لو كلا هجايو بابور تسيكو كلا السعودانيو سير شقة ما كده كلا الصين يا لو كلا نظاميايو أنت أسولينه أقوليه أنت أسمع كان كسر قدبنه أو الدستور نمد مشكلة ما لها waxa lagu qoray in baa la fiirinaya ay noqoto hal arrin oo waxay noo soo hartay hal mas'alo oo lagu baabacay oo meesha Soomaaliya ay dhahdaan faraha looga gubtay ayaa ayadana jirta arrintaasi culays weyn ee dadka ku haysa oo ah yaani dawladnimadka Soomaaliya hadaan nahay dawladnimadkeenu way cusub tahay oo madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ayaa dadka intooda badan ay soo gaareen هذا عاد الله نحرسه مرد ويودنت ومدحويني ugu horeeyay marka taariikhdeenu taariikh dheer ma ah isticmaalka inta laga soo imaaday iyo waqti dheer ma in badanna fawda ayaan ku jirnay waxa mushkilada ugu qabtay marka wixii aan soo arki jirnay ayaa wuxuu ahaa shariicada aan ku toosnayn maxaa yeelay shariicada dadkii ku toosin lahaana diyaar ma ahayn dadkii inooga tagay xukunkana isticmaal ayuu ahaa kharashkan ayaga bixin jiray meeshun baa laga sii waday marka la soo qaado يعني شريعة ذيبا أيضا هرج الشيء أو لغون رقم ما ينن أرك وأون لسريناي وأون لسبورسناي مرة فريستي أو إسكت توستي أو جيس كجيس نظام كنتوا ولا جاري الحمد لله دتكم ما ينارك وحي سؤالك الجنين بعهد وحلار كان مركا عالم كلام مركز فيريسيت يا إنك مركز فيريسيت هرت الدولة دو ما حي كنا قنتها سؤال السويدينا هي ما حي حكمتها ومركز سوى حل مثلا مشاريع حكمتها mise waxay xukuntaa qaanuun wadci ah waxa dadku soo degdegaysa markiiba ma qaanuun wadci xukuman su'aala meeshan baatay marka qofkii xukuma qaanuun wadci ah xukunkiisu muxuu yahay dadku waxa u sahlan marka oo fudud aayadaha hadaan akhrinayno oo ay naftooda aan waxooga kor istaagayna aayada koobaad wama lam yahkum bima anzala Allah fa ulaa'ika humul kaafiruun yani qofkii xukumi waa wuxuu Ilaahay soo dajiyay فأولئك هم الكافرون وقالوا آية كلام حي هذا هاي فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون صدق هذا إزدبيا على سماء
hooriskooda markaad fiirisid isku wax kuma ayna dhamaanin midna waxay ku dhamaatay kaafiruun mid waxay ku dhamaatay zaalimuun midna waxay ku dhamaatay faasiquun halkaana su'aal ka imaatay marka